dhinacyada wada dhista qaybo kala yeeshay ma ku wiiq Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. meel walba oo adduunyada daafiyada ka joogtaan waxay sariyoole idin leh mar kale iyo maalin kale iyo mid kale oo kamid ah barnaamijyadeennii aynu bulshada had iyo jeer ugu sharaxi jirnay ama ugu sheegi jirnay waqtiga iyo waaqiciga la taagan maqalay warlaay ma lagu waramay ma dhamaanayso ee adigu ha dhamaan barnaamijkan is wada gaarsiiya waxaan doonaynaa kow inaan su'aal yar oo kooban ka jawaabno labo inaynu qolo gaara ama urur gaara ama cid gaara fariin u dirno ayaynu doonaynaa that's my pointigaygu waa intaas waxaynu ayaamahanba wadnay oo aynu ka hadlaynay kacdoonadii waxa weeyaan ka socday Soomaali galbeed dhulka Soomaali galbeed la yiraahdo amaba dhulka dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya kacdoonadaas oo aynu si sharaf leh ugu guuleysanay hamigeennii rabitaankeenii iyo dareenkii shacabka ee ay dadku keeneen ama sameeyeen waxa isweydiin mudan hadaba oo maankayga iyo maskaxdayda aan iska weydiin waxaan arkay oo fariimahooda ay soo gaadheen wax aad loola yaabo ku tilmaamay xaqiiqatana markaan idin tuso idina aad ogaanaysaa in badan halkan aan idinka sheegay idinkuna celceliyay aan u malaynayaa inaad wada garowsantihiin maanta intiina aan hore u garowsanina ay hadda garaabi doonto arrin aad ka fajici doontaan aad la yaabi doontaan arrintaas waxay tahay dhulka Soomaali galbeed amaba Soomaalida Itoobiya ma dhul Soomaali leedahayba mise waa dhul dadka qaar leeyihiin qaarna marti ku yihiin waa hadafka barnaamijkaygan maanta dhulka Soomaali galbeed ama Soomaalida Itoobiya ma waxaa jira dad leh iyo dad marti ku ah mise waa dhul dadkaasi ay wada leeyihiin dadka degani ay wada leeyihiin su'aashaas waxaan doonayaa kow inaynu ka jawaabno labo fariimo ka yimi niman sheeganaya inay xisbi yihiin ama nin isku sheegay isagu kulli anigu Allahu a'lam ma oranayo uu yahay nin isagu isku sheegay inuu xisbi yahay ama urur yahay sheegayna inuu isagu kacdoon sameeyay in kacdoonkiisii Cabdi Maxamuud Cumar lagu bedelay inuu isagu wax sameeyay oo wax weeyaan dad gaar ah aflagaadeynay isagoo dad gaarana uga dhigaya inuu difaacay ururka la baxay dulmidiid oo xaqiiqatan anigu aan taageeri jiray fiidiyoyadeedana aad ka wada arki kartaan anigoo fikradooda ku sheegayay inay tahay mid nadiif ah dhaantana kuwa kale ama ururada kale ka mid ah waxa weeye ka jira meesha sida ONLF oo aan u arkaan anigu in la iminkana aan leeyahay waa hal reer waa urur reer leeyahay heegadii Cabdi Maxamuud Cumar oo iyaduna hal reer ahayd dawlad deegaanka laftigiisa oo ay u bixiyeen iyagu ogaadeen waxaas oo dhanba anigu aan dhaliilayay oo aan lahaa waa hal reer waxaan samoodayay dulmidiid inay ka duwan tahay taa kuwa kale oo uu yahay urur ka yara ballaaran malaha Soomaali oo dhanina ay ka qayb tahay waa sida iyagu dhowr jeer ku celceliyeen aniguna aanu aaminay iyagu siday ku celcelinayeen balad oo fiirso anna waxaan u aaminay iyagu siday ku celcelinayeen hadaba ninba maamaaba waxay ahayd geelow socotay daaqday bay ahayd markaad ciin daaqdo ayaa lagu yaabaa geelow bay ahayd daaqday markaad ciin daaqda lagu yaabaa nin sheegtay inuu yahay xubin golaha dhexe oo waxa weeyaan dulmidiida isla markaana sheegtay inuu yahay madaxa ama xoghaynta siyaasadda arrimaha dibadda waa isagu xiteetal ku sheegtay siyaasadda arrimaha dibadda ee waxa weeye dulmidiid ayaa yiri waxaan nin baan ka fadhiisan waayay waan ka seexan waayay nin baa caytamay ninkaasaan u jawaabaya subxaanallah waxaan garan waayay talow cid u jawaabaya iyo bal waxaanu yara dhageysanaynaa adaba ninkaas iyo wuxuu ku hadlayay barnaamijkan is wada gaarsiiyo share gareey barnaamijkan all inta idinku jirtaa bal hada wada share gareey Soomaalidana wada gaarsiiyo waxbaynu doonaynaa inaynu dadka tusno ayaynu doonaynaa dadku waxa way ku qanci doonaan way la yaabi doonaan u qaadan maayaan
laakiin way ku qasban yihiin inay u qaataan sababtu tahay waa sida ay tahay xaqiiqda haddaad istiraahdo wax qari ma qarin karaysid ilaa iyo waxa weeye marka dambe ay da iska caddaato oo ummadda kale aragto wixii aad lahayd qari mooyaan markaanu tan wada aragno ee wada daawano ayaynu jawaabtaynu ka odhanayno ee waafigaana ka odhanayna bal haddaba aynu aragno horta balaynu aragno waxa meesha ka soo socda ilaahu khayr ka dhig ilaahayow khayr ka dhig iswada gaadhsiiya oo la fiyo iswada gaadhsiiya saaxiiba iyo marin habaabinta shacabka aad marin habaabinaysaan ka daaya waa laydin la xisaabtami doonaa ilaahay baa idin la xisaabtami doona halgamayaasha reer dulmidiid baa idin la xisaabtami doona propagandada iyo beenta dadka aad u sheegaysaan iska daaya halgamayaasha reer dulmidiid umahadnaqa ilaahay umahadnaqa guusha iyo gobonnimada reer dulmidiid ayaa soo ooyey guusha iyo gobonnimadana reer dulmidiid baa iskale dulmidiid marar badan baan ku celcelinay xaafad maaha qolo maaha reer maaha cid madgooni ale maaha waa ummadda soomaalida Itoobiya gobolka ka soo jeeda ee u nasab sheegata dhammaantood oo isu tagtay aqoonyahankoodii caqiladoodii uwaasyadoodii garaadadoodii iyo waxgaradkoodii baajuudi ku bixiyay sidii mujrimkii Cabdi Maxamuud Cumar la iskaga dulqaadi lahaa iyagii oo la kaashaday dawladda dhexe iyo militariga dalka Oromana kuma soo duulin Oromana ma qabsanin horena waan u sheegay waxyaabaha laabada ka ay qeyrada tolaaya dhulkii baa la qabsaday maxay baa la qabsaday kan baa la qabsaday waxba kama jiraan dhulka ciidana ma qabsanin ciidana kuma soo duulin annagu federaalkaanu ka midnahay Itoobiya aanu ka midnahay ciidamada federaalku waa ciidamadannadii ciidamada federaalku waa wiilashanadii waa halgamayaashanadii waa kuwa national guardkii weeyaan waa kuwa qaranka ilaaliya waa kuwa xuduudaha ilaaliya waa kuwa markii loo baahdo si emergency ana loogu yeero militariga jigjiga jooga ee gudaha soo galay ee soo farageliyay dawlad deegaanka iyo maamulka Cabdi Maxamuud Cumar uu hoggaanka ka ahaan jiray annaga u yeernay oo dulmidiid ah dawladda dhexe annaga hogaaminayna dawladda dhexe annaga mataqaanaa shacabka iyo wixii uu shacabku ka codsaday bay ka jawaabaysaa ninkan uu ka baxay uuna ka tegay meesha kan loo dhiibana weli wixiisii iyo raadkiisii waxa weeyaan waa Cabdi ilay xaarkiisii way ka jooga meesha weli shacabka kacdoonkuna kama tanaasulayo mana joojinayo kamana harayo ilaa uu ka salgaaro wixii uu u kacay diri dhabo aqoonyahankii iyo waxgaradkii iyo caaqiladii waayahay ayaa ku dhan waa la sii wadayaa waad fahanteen baan u malaynayaa sharaxaadu isagu iska bixiyey iyo xisbigiisa iyo ururkiisa sharaxaadu ka bixiyey haddaba sharaxaadiisa kuma haysano iyo ururkiisa iyo xisbigiisa caqligiisa iyo cilmiga ilaahay siiyey da'da uu jirana waxaynu leenahay ilaahay ku kordhiyo maxaynu ku haysanaa bal in yar baynu hore u sii wadaynaa barnaamijkiisa in yar ayaynu hore u sii wadaynaa Soomaaliga ma taqaanaan Itoobiyaanki baanu hadana dalkanagii ku dalbanay hadana inaan dhahdaan xabashiba wadankii soo gashay Itoobiyaan baa soo galay Oromaa soo galay labadii dhinac oo noo ogolaada mar waxaan dhahdaan af Soomaaliga ay barteen oo Itoobiyaan weeyaan mar waxaan leediin wadankii Itoobiyaan baa qabsaday Soomaalida calanka buluuga ale ee shanta xidigood leh hiilo ugama baahnin dariskanaga hiilo ugama baahnin annaga isku filan waxaa isku filan region ogaadeenaya ka naxo nafta waa dalka
ogaadeen yaa la yidhaahdaa dadka qaarkiisa u hadlayaan markaan u fiirsado ogaadeen yaa u bixinayaan dalku waa ogaadeenaya waa dalkii gumaysi okay si waxaan way maqlaysaan waa dulmidiid xubnihiisii ugu sarsareeyay weeye sidoo isagu sheegtay xubin golaha dhexe ka mid ah madaxa siyaasadda iyo arrimaha dibadda wax noocaasa wuxuu yidhi oo inoo caddeeyey dalka magaciisu waa mabda'a dulmidiid aaminsan yahay siduu isagu inoo sheegayo inagu ku xukumi mayno siduu isagu inoo sheegayo wuxuu yidhi waxa weeye dalka magaciisu ogaadeeniya weliba wuu inoo sii wadaya isagaa inoo sii sharaxaya bal haddaba muxuu kale aaminsan yahay okay isagoo siyaasaddii dulmidiid sharaxaya oo ka hadlaya ayaynu eegaynaa mar walba waa dalkii intaasoo dhan laga dagaalamayay waa dalkii qor isku dhiibka ahaa raggii xornimo u dirirka ahaa ee gobta ahaa ee axmaarada la dagaalamayay kuwii shalay aad soo dhiibayseen meen ahayn raggii axmaarada la dagaalamayay ee gumaysiga la dagaalamayay ee kuwan hadda leedi weyda ku soo duulan la dagaalamayay kuwii soo dhiibayay ee ku sharaf doonanayay ee ku lacag doonanayay ee ku maamuus doonanayay miyaydaan ahayn soomaalida dariska nala aho halyeeyadanadii caaway waxgaradkanagii caaway geesiyaashanadii caaway halgamayaashanadii oo aan laf caaway xaggay aadeen ogaadeen iyo caaway raggii halgamayaasha xaggay tageen soo idinku axmaaro maydaan u dhiibin soo idinku axmaaro maydaan ku dilin soo idinku maydaan kusoo magac dooranin soo idinku sidii gabadh la soo hooyay oo kale umaydaan soo hooyin rag walaaladiin ahoo diin idinla wadaaga ninkii ugu dambeeyey wuxuu ahaa qalbi dhagax buu ahaa sheekh muuse u ahaa cabdikariim sheekh muuse ninkii ugu dambeeyey soo ma ahayn ee loo soo dhiibay axmaaro loo soo dhiibay ee cadow gacanta loo soo geliyay soo ma ahayn haddana maanta inaad dhahaa soomaali baanu u doodaynaa soomaali baanu u doodaynaa soomaali baana la yidhahdaa waddankii guumaysi baa qabsaday kuwii soo dhiibayay iyo cabdi maxamuud cumar waa mid gobolkan dad baa iskale runtaan maanta sheegaya dulmidiid mid la yidhaahdo iyo cabdi maxamuud cumar waa oo meelaha soo galgala oo facebookan iyo waxaan ku ararko oo meelaha dhurraac ka dhaha war dalka ogaadeen baa majority ka ah dalka ogaadeen baa iskale dhulka ogaadeen baa la yidhaahdaa nin marti ahoo la degan baa tahay martinimadaada ogolow miskiin baa tahaye geed quraanjaha isku kaakicinne ciise riyaalow runtaa laguu sheegayaa waa lagaa xishoonayaa magaalaad leedahay gobol baa degtaa qabiil baa tahay nin isaaqa baa tahay nin hargeysa iyo burco degaa tahay runtaan kuu sheegayaa maanta ninka maanta reer sheekh ciisaha burciya dee hargeysa isagaa majority ka ah geda bursi kama aha warsigari kama aha dhulbahanta kama aha ogaadeen majority iyagaa ka ah gobolkan aad leedahay anigaa leh mana lihid adugu waxaa tahay soomaali nala degan oo marti ah baa tahay hargeysa ma baarlamaan baanu ku leenahay baanu ku leenahay kuushalay soo dhiibaya baa ragga wuxuu yidhi inanku isagoo garnaqsanaya xubin dulmidiid ka midana sheegtay inuu yahay weliba sheegtay inuu madaxa siyaasadda iyo arrimaha dibadda yahay wuxuu yidhi hargeysa iyo burcaad leedahay martibaad ku tahay dhulka soomaali galbeed dhulkana ogaadeen baa iska leh horta dulmidiid ku gefi mayno waxaynu weydiinaynaa inuu ninkan iyaga ka mid yahay eega waxaynu weydiinaynaa ninkan teetalka uu sheegtay ee xisbinimada ah ee ururnimada ah inuu teetalkoodii yahay baynu weydiinaynaa afka uu ku hadlayaa inuu afkoodii yahay baynu weydiinaynaa waxaynu weydiinaynaa kow inay la qabaan oo ay iyaguna aaminsan yihiin dhulku inuu yahay ogaadeeniya dadkuna yihiin ogaadeeniya cabdi maxamuud cumar iyo iyaguna maanta ay mid yihiin waa siduu inoo sheegay cabdi maxamuud cumar iyo iyaguna maanta ay mid yihiin taasna waxaynu weydiinaynaa bal inay kasoo jawaabaan oo ay dulmidiid afkiisa aynu aragno maadaama ninkan afkiisii uu ku hadlay oo yidhi dulmidiid baan ahay madaxa arrimaha siyaasaddaan ahay noocan kalaan ahay isagu issharaxay bal waxaynu weydiinaynaa fekerka dulmidiid ee inoo sheegi jireen ee odhan jireen soomaali galbeed baa u dhan soomaali galbeed buu yahay soomaali galbeed buu ka kooban yahay bal hadda fekerkii goorta la bedelay ee laga dhigay ogaadeen ayaynu weydiinaynaa iyagaynu doonaynaa inay jawaab ka bixiyaan waafiya haddaba ma qalasaan laba mid hore waxaynu ogeyn onelef inay iska tahay magaceeda oo cad ogaadeeniya haddaba lu fiirsada ogaadeeniya inay iska tahay waan ku soo qabanaya maxamed cabdi odeywaa waan ku soo qabanaya
waxa weeyaan hore waxaynu ogeyn inay ogaadeen iyo tahay onalef iyadu sharaxaad inoogamay baahnayn dadka inaynu weydiino waxaan idhaahno war maxaad aaminsantihiin inoogamay baahnayn sababtu tahay wayba inoo caddeeyeen mabdaoodii iyo magacooda labadaba way inoo caddeeyeen waxay caddeeyeen in dhulku ogaadeen iyo yahay waxay caddeeyeen in meeshu taa tahay laakiin qolada dulmidiida kumanaan aqoonin kumanaan arag noomanay odhanin markii hore waxaanu nahay jidwaaq haddaba la fiirsada jidwaaq baanu nahay oo anagu jidwaaqnimaan wax ku doonaynaa waxayna lahaayeen Soomaali galbeed oo dhan baa kamida Soomaali galbeed oo dhan baa ka kooban waxa weeye waa Soomaali galbeed dira dhabooti shirkooda ay ka qayb galayeen tagayeen laan Soomaali galbeed baa caynkana bal hadaba waxaan weydiinaynaa ma waxaad aaminsantiin dhulka inuu dhul ogaadeen yahay dadka kalena ay marti ku yihiin ma waxaad aaminsantiin anigu inaan Hargeysa Burcal leeyahay xaggaana aanan idin la lahayn hadaba la dhageysta ma taasad aaminsantiin pointigaan idin sheegaya horta idin weydiinaya waata pointigaan idin weydiinaya ee su'aasha ay waata arinta timi ayaa timi marti arinta marti baati waxaan qaatay cabir ishayda ku filan arageygana ka kooban idinkana aan doonayna idin tuso bal cabirka wada eeg dhulka Soomaali galbeed leeyado wuxuu ahaa xilligii gumeystii laba qaybood aad ugu fiirsada laba qaybood baa xilligii gumeystii qayb magaceeda waxa la oran jiray ogaadeen qaybna magaceeda waxa la oran jiray Hawd and Reserve Area odaygii bila aqliga ahaa reer dulmidiid ayaan doonayna 10 baan tusaynaa 10 bal inuu wax fahmo malaha cilmiga ku yar intan uu jiray iyo maskaxdiisuna waa kala yara weyntahay baan filayaa teetalka la saarayna inaanu kiisi uu qalmiyay ahayn way ka muuqataa labada magac laba deegaan baa kala oran jiray labadii deegaan markay isu tageen Soomaali galbeed way noqdeen halkan waxaan idinka tusayaa maabka dhulkaas aan idinka tusayaa halkan maabka iyo intii la oran jiray Soomaali galbeed iyo intii la oran jiray Allahumma salli ala sayyid intii la oran jiray ogaadeen iyo intii la oran jiray Hawd and Reserve Area dhulka la yiraahdo ogaadeen waxa deganaa 330 qolaan u maleynaya iyo 430 qolo oo Soomaaliya ogaadeen ku hal reer oo kamid uu yahay waa hal reer oo kamid ogaadeen dhulka la yiraahdo Hawd and Reserve Area waxa degan laba qolo bas yaanan ku gafin way laga yaabaa inay qolooyin kale kula jiraan laakiin laba qolo majority ah lagana yaqaan Hawd and Reserve Area waxa degan Isaaq iyo Samaroon ninkii kale oranayaana wax ku degano welcome waa caadi no problem Hawd and Reserve Area waa dhul baaxadiisu ay leeg tahay hadayna kuba dhaweyn hadaba leega hadayna kuba dhadho ama kaba ama wax weeyaan ma oran karo wax naf leh bay ka yar tahay inta la oran jiray ogaadeen hadaba loo fiirsada inta la oran jiray ogaadeen markaad maabka imika dul tagtaan ku qora labada maab isaga idin kala calaamadinaya isaga idin soo kala saaraya isaga idin kala tusaya dan anigu been idin sheegayo inta Google ka gashaan baara oo eega okay hadaba ogaadeen dhulkoodii waxa weeyaan waa dhulkii gumaystuhu ogaadeen ugu bixiyay uma diidani waa sax dhul weyn bay degan yihiin uma diidani waa sax gobollo badan bay isu magacaabeen uma diidani waa sax laakiin waxaan ku leeyahay dhulka Hawd and Reserve Area ee anigu aan leeyahay iyo dhulka ogaadeen uu leeyahay ee reerka ogaadeen la yiraahdo degan yahay haddii mitir loo qaato ama cabir loo qaato waxa badan dhulka Hawd and Reserve Area hadaba dhageysta waxa badan dhulka Hawd and Reserve Area la yiraahdo sababtu ku badanaya waxa weeye maabku waa kan maabka aad aragteen waa kan iswada gaarsiiya barnaamijka share gareeya si xaafadoodii ugu gaadho ninkii qiireysnaa ee lahaa waxa weeyaan waxaan ahay dulmidiid baana
maabku waa kaa si fiican u eega si fiican ma aragtaan ya calaamada cas waad aragtaan calaamada casi weliba aan dhinaca qalloociyey oo qalooco iga qalloocday waa dhulka la yidhaahdo hawd and reserve area waana dhulka ay degan yihiin weliba kala badh aan xaggan kaga yimi waa dhulka ay degan yihiin isaaq iyo samaroon haddaba la dhegaysta gobolkan waxaa dega 36 qabiil sida loo sheego Soomaaliya oo dir iyo daarood iyo hawiye iyo cid walba ka kooban 36 qabiil maxaa soo haray marka labada reer ka jarto waxa soo haray 36 34 qabiil 34 kale qabiil ba waxay degan yihiin inta soo haray dhulka weyn ee baaxadda leed aragtaan soo haray ay 34 kale qabiil degan yihiin okay hadaba ogaadeen waxa uu ku faanayay leeyahay dhulkan aniga iska leh anaa dhulku waa ogaadeen dhulku waa kan horta mid ha loo sheego marka koowaad bal dhageysta marka koowaad mid ha loo sheego ogaadeen dhulka la yiraahdo waa dhulka adigu aad degantahay ogaadeen oo aniga ogaadeen la ima oranin markii gumeystuu joogay la ima bixinin aniga ogaadeen hadalkayga si waxaan u fahmay markii gumeystuu joogay aniga dhulkayga ogaadeen looma bixinin maantana adigu u bixin maysid hadda taariikh ku doodo oo aad tiraahdo xilligii gumeystihii xornimaynu ku helaynaa waynu ku dagaalami karaynaa tan baynu samaynaynaa tan oo aad Soomaaliis tiri ka caqli badi aniga dhulkayga ogaadeen marnaba looma bixin haddaad cadayn u hayso taariikhda aad cadaynayso aad leedahay dhulkaaga ogaadeen loo oran jiray welcome waynu ka wada doodaynaa cadaynteeda keen Soomaali Maxamed tus taariikhdu way qoran tahay wax la iska sheegaa ma jirto ogaadeen baa sidan ogaadeen wuxuu ka mid yahay 36 qabiil ee degan dhulka hadda hadalkayga si waxaan u fahmay calaamada cas marka aniga iga tagto inta cas marka aniga ii deyso inta kale ee soo hadhay 34 qabiil oo Soomaaliya baa degan 34 kale dhulkooda ma intuu ku yeelan kara ogaadeen balad eega jidwa wuxuu leeyahay ilaa caasimadda inta la yiraahdo Jigjiga adigu gobolka faafan ka soo qaad oo kala badh waxa weeyaan marka adigu Jigjiga iyo aageeda u dhow xoogaa buu leeyahay gobollo kale oo badan oo la degaa waxa weeyaan ay la degaana way jiraan reero kale oo reerahooda absama waayahay waxa dhulka degan in 34 qabiil anigu maxaan ku sheegi karaa 34 qabiil ma tirin karaba laakiin tiro guud ka soo qaad tiro guud waxaad ka soo qaadaa ogaadeen intee buu ka degayaa dhulka hawdan reserve area ogaadeen ka soo heli mays ogaadeen jooga ma jiro hawdan reserve area haddaba dhulkan inta kale soo hadhay intee in leeg buu ka degan yahay intee in leeg buu yeelan karaa ma lagu sheegi karaa ma la oran karaa waa majority anigu caqliyadaan idin sheegaya haddaba waxay tahay dhageysta inaan wuxuu ku dooday inaan ma ahayn odaygiis lahaa teetal baan hayaa wuxuu ku dooday martibaad meesha ku taa okay dhulka aan leeyahay ma martibaan ku ah yaan ka martiyay waa su'aal cid aan martida uga ahay waayo cid aan martida uga ahay aan ka sugayaa ma dulmidiid baan marti uga ahay ilaan maxubin waxa tahay dulmidiida bal ii soo cadeeyo ma dulmidiid baan marti uga ahay ma neelf baan marti uga ahay cid aan martida uga ahay waa kuwii inta markaan ka gudbo ee aan su'aashaana dhaafo 38 qabiil way okay markaan su'aasha dhaafo waxaan u soo noqonayaa deegaankan caqliyada 60 jirku maanta ku fakarayo ee uu leeyahay dhulku waa ogaadeen tan kale waa ogaadeen dadka kale waa marti waa caqliyada deegaanka kala fogeysay ee heerka gaarsiisay waa caqliyada keentay dulmiga iyo dhibaatada iyo xaq darrada deegaanka ka jirta waa caqliyada keentay in tuulada ogaadeen leeyahay gobol loo magacaabo dhulka kale ee baaxadda lena aan la gaarsiin karin gobol dhulka aan ku sheegay hawdan reserve area ee aragtaan hal gobol ma laha hada dhageysta hal gobol ma laha inta gobol baa lagu daray eega u fiirsada inta calaamad ah gobol baa lagu daray inta kalena gobol baa lagu daray intaana gobol baa lagu daray intana gobol baa lagu daray afar gobol baa loo kala qaybiyay afar gobol ayaa loo kala qaybiyay
sababtu waa maxay waa si aanad adigu dhul u sheeganin oo aanad u odhan gobol hebel baan leeyahay gobol hebel kalaan leeyahay maskaxdaada lala dagaalamay dadkaaguna waxay ahaayeen dad hurda oo deegaanadooda iyo siyaasadooda iyo maskaxdooda midnaba aanay la jaan qaadi karin xilligaa tii la ciyaarayay laba sababood baa keenay waa runtiisa oo aan u qirayaa mid wuxuu yidhi adigu waxaad leedahay Hargeysa iyo Burco waa runtiisa waan u qirayaa Hargeysa iyo Burco aniga alle alxamdulillah cidina igu maaysan laakiin ma laawo hamoodin inaan kaaga tagay tii aan lahaa inaan kaaga tagay hamoodin daaq baad u soo doonatay buu oo daaqa ma ya dhulkan odhan Oromo lahayd berigii hore Abyssinia waa dhulka Soomaalida Oromo dhulka lahayd Soomaalida reer guuray oo guuraysay tagtay anaga iyo ogaadeen kuwan isdaba guuraynay iyagu way sii socdeen anaga waan soo daba soconay waxa weeye dadana waynu wada fadhiisanay mar baynu wada fadhiisanay meesha ya maanta labadeenin in daaqa ku wada tagay meesha hadaynu niraano adaa daaq ku tagay adaa ku tagay deena isku qabsanay noqonaysa maad ka diis warniyo inaan hadalka xumeeyeen diidaya si wacan ii fahma inaan hadalka xumeeyo oo ninka erey xunayga tagaan aad u diidaya ma jecli waayo reer wacan buu ka soo jeedaa jidwaaq anigu sharaf badan baan u hayaa siyaasadda meel baanu ka wada ridaynay laakiin waxaan garan waayay in xoogaa laaluusha isaga la soo siiyey iyo inay ka dhab tahay iyo in caqliyadu taa tahay laakiin Soomaali galbeed baan la hadlayaa 350 halka ay ka daawanaysa ayaan la hadlayaa waxaan idin leeyahay Soomaali galbeed ay waad aragtaan hadday balqoladii dulmidiid sidaa u fakarayso oo elefna fakarkooda aynu ogeyn heegana aad aragteen xalka yaala idinka waa mid idin yaala xalka yaala waa mid idinka idin yaala waxa la yiri adiga iyo adeerka isma aragti dhaantaana inantii ma u deysaan adiga iyo adeerka isma aragti dhaantaane inantii ma u deysaan bay xaashadu ay maanta waxaan leeyahay oo elef iyo dulmidiid iyo heego iyo reerku malaha miyaanu isdhaaminba ya miyaanu isdhaaminba oo caqligan ka duwan miyaan la keenayninba maxamed oday waxaad iga soo garaacdaa maaseejarka halkan qofka ma soo qaban karo marka maaseejarka iga soo garaacdo raali maaseejarka iga soo garaac ninkaas dulmidiida bal isagaynu weydiinaynaa wax qof kasta oo doonayo maaseejarka iga soo garaac inuu ka qayb qaato Sultan maaseejarka iga soo garaac halkan qofka ma soo qaban karo maaseejarka marka iga soo garaacay idinku raali ma hayo mobilkii kula maaseejarka aad garanayn marka aad baan idin salaamayaa fariintaan u soo galay maanta intaas un bay ahayd jawaabtaana waxaan ka sugayaa maaseejarkan ku yidhi walaal ma halkan maaseejarka ma fahmaysaa soo dhow ma maqlaysaa ما يمغلى ساعة. السلام عليكم. عليكم السلام. محمد عادي انت كنت اول السلام عليكم السلام عليكم. وان كان قال سلامت. waxaan u leeyahay in dhulka Soomaali galbeed aad maxaa ku dhahday aad ka hadlaysay ma dhulka Soomaali galbeed kama aan hadlayn waxaan ka hadlaynay fikirka maanta uu aaminsan yahay dulmidiid ma fikirka dhulku waa ogaadeen dadkana qaar baa dhulka la qaarna waa martiba mise fikirkaasi waa been ku soco horta maxamed fikirka ariga si faahfaahsan baan ayaan kugu sheegayaa haye
dulmidiid baynu ka hadlaynaa fadlan dulmidiid ka hadal marka dulmidida ha warniya maxamed horta dulmidida anigu waxaan u aqaanaa niman soo ursaday oo maxaan ku dhahdaa oo cid walba leh laakiin iyaga madaxdooda qaar ka mida baa caddeeyay dhulku waa ogaadeen dadkuna waa ogaadeen dadka kalena waa marti marka fikirka ma qabaa dulmidiido ma aaminsan yahay والله طولالو ما دوش ودا فكر ما عمي فهمتها aad bad walaal maasantay thank you so much qaar iyaga baa inoogu jira marka iyaga wanaagsan waana dhici kartaa waaya oo ka baxay inankaas koolka aye maxamed oday waa soo dhow aad baan ku salaamaya barnaamijka waad la socotay baan malaynaya waan la socday niyoon odaygan aan maanta dhanka sheekeeyay sababta anaga codka sare u qaad si lagu maqlo odaygu beesha uu ka dhashay waa nin jid waaqa laakiin dulmidiid ma matalo odaygu hadda koor waxaan jiray dulmidiid laakiin waa laga saaray markii degdeg batay sida uu degdegay oo idin la hadlay hadda koor u hadlay sidaa darteed meesha waa laga saaray dulmidiid xubinka ma garata laakiin isagu wuxuu sheegtay iminka inuu xubin dulmidiida yahay markaa meel la beeninayo waxa leeyahay ma aha anaga ku sheegana xubinta waxaan jiray waa ka baxay xataa waxa weeyaan lagu soo celiyaa loo bariyo tagay waa laga diiday sababtoo waa nin degdeg badan nin siyaasadda la haysta maaha waan gar midda kale ah ii soo sheeg marti baa deegaan tiin marti kuma tiina dhulka aad degantiin idinkaas kale inagu waxaanu doonaynaa maadaama uu ninkaasi afka dulmidiid ku hadlay dadna ku aflagaadeeyey wax aan sharci ahayn oo jirina ku sheegay dulmidiid haddii ay fikirkaa la qabto waa halkeeda haddii aanay la qabin inay iyagu beeniso oo tiraahdo fikirka ninkaa ka yimi waa wax aan ummadda qabanin soo taasi ma saxna way saxsan tahay inta kale mas'uuliyiintuna way beenin doonaan oo hadda ka horna kamida maqal nimanka dulmidiidka ah ninkana dulmidiid kumaydaan dhex arag waxa weeyaan dulmidiid waa ka dulmidiid xataa ma ahayn jid waa lagu jiray dulmidiid xataa meel kama soo galin ma ninkani laakiin eedda waxaa keenaya isagii markuu hadlay wuxuu yidhi xubin baan ahay ka mida guddida weliba xil baan hayaayo siyaasadda waxbaan qaabilsanahay afkiisa saasuu inooga sheegay marka cidda uu sharafteeda ku hadlayay iyo afkeeda sow maaha inay tiraahdo annaga nagama mid ahaa ama uu naga mid yahay aniga hadda ku sheegay ciise horta ninkan haddii la guraa dulmidiid iyo jid waa kala saar dulmidiid Soomaaliya kasta way ku jirtaa dulmidiidkani hal mar hal saac shir ay leeyihiin istaagin laakiin jid waa ayuu ahaa jid waa markii uu siyaasaddiisa ay noocan degdeg uu ka aflagaaday waa laga dhex saaray okay aad baad umahadsantahay mas-uul aad baan kaaga mahad celinaya waqtiga mid kale kugu dardaaciyo haye waxaan rabaa inuu sheego waxaa ka soo baxay haye nimankaas waxa weeyaan nimankii Somaliland 1990 xasuuqay weey ee Somaliland deganaa nimankii maxkamada haysan jiray waa niman jijiga ka yimid oo cabdillah la shaqeynaya garad waa kuwama bal magacooda noo yar magaco waa laba nin oo labaduba korneeliyiin mid waxaa la yidhaha cali cabdi ciise midna waxaa la yidhaahaa leegadii waa haysan jiray kalena waxaa la yidhaahaa abdikariim khaliile waa suldaan dib u xulasho loogu magacaabay labaduba hargeysa joogaan ma garata waan garta dadkii Somaliland xasuuqay ee isoo sheeg dhibaatada badan u geystay ee xataa maxamed xaaji ibraahim gaal YouTube-ka dadka baa dhawaad ka helaysaa dadkaas Somaliland haddii soo galaan gacanta lagu qabto baa la yidhi raggii idin xasuuqay ee siyaad bere la socday baa jijiga ka soo carray oo cabdillah ee dadka la gumaaday hargeysa joogaan ragga inay Somaliland soo qabato dadkoodna ay ka warayaan dadkii idin xasuuqay 1991 inay hargeysa idinla joogaan inaan idin sheegaan rabaa aad baad umahadsantahay walaal thank you so much aad baad umahadsantahay okay walaal codka shacabka aad baan ku salaamay saaxiib soo dhow waayahay suldaan suldaan oo soo dhow aadaan ku salaamaya maxamuud alqaali aadaan kaaga mahadcelinaya barnaamijka nasiib ku wala inaan boqolka soo galay waa soo dhow waa ku soo dhaweynaya runtii waxaan u malaynayaa maxamuud inaad alqaali in laga hadlayay baa dulmidiid qaabilsan yahay fikirkan odayga adeerkay ah oo khaldan fikirku soo jeediyay waan garta
maxamuudow xalay markuu leybka soo galay waan daawanayay waxaan ka mid ahaa ninkii dhaliilay fikirkiisa ma garatay waan gartay waxaan markhaati ka ahay anigoo ku hadlaya barbaarta dhalinta dulmidiin afkoodii ku hadlaya ka dhalin ahaan odaygaasi ma ahan xubin uma qalmo mana noqon karo dulmidiinna ma ahan waan gartay waan gartay waan ku maqlayaa Sudan maxamuud way maqashaa haddaan ku maqlayaa halo maxamuud way maqashaa waan ku maqlayaa hadda waan ku maqlayaa may maqlaysaa waxaan u malaynayaa khadku dhinaciisu ka xigeen ka waayahay barnaamijkan intaasaynu kusoo gabagabeynaynaa mar kale ayaynu isku soo noqon doonaa mar dhow waxaan idin leeyahay salaamullah fariintaana waxaynu ka sugaynaa jawaabteeda madaxda xisbiga ama ururka uu sheegtay ninkaasi ayaynu ka sugaynaa innaga aflagaada inaga tegi mayso cidna waxba u sheegi mayno cid kale waxba ka odhan mayno markaa kadib baynu ogaan inaynu marti nahay iyo inaynaan ahayn aad baan idin wada salaamaya dhammaantiiba asalaamu calaykum